waxaan ahaa ruux aan weligiisa jecel soo arag dhibtiisa iyo dhibtiisaba balse jacaylka waxaan ka aaminsanaa inuu yahay naxariis iyo farxadaan dhammaaniin markaan adiga ku jeclaanayay aniga ma lahayn indho aan ku kala saari karo inaad i jeceshahay iyo in kale waxa kaliya oo aniga ii muuqday waa jacaylkaaga waxaan aaminsanaa sidaan aniga ku jeclay inaad adna i jeceshahay waayo waxaad ahayd qofka ugu horeeyay ee aan aniga jeclaado waliba si dhaba adiga ima xumeyn balse markii aan si xad dhaaf ah ku jeclaaday waliba aad ogaatay inaan ruux kale kugu doorsan karin ayaad waji cusub la soo baxday dulqaadkaagii wuu yaraaday xiisahaagii wuu nusqaamay hadalkaagii wuu isbedelay iyo eray walba oo aniga i farxad gelin jiray anigana murugadeeda way badatay dadaalkayga wuu laba jabaaray si aan adiga kuu weynin wax walba aan u sameeyay waad isdaami weyday aniga ruux la jeclaan karo ma ihi miya adigan dadka kugu jeclahay qalbiga adiga dawaha dokhuna ruux kale ma rabo maad iga didaya alla daran bad iga qabtana waxaan murti kugu dul furay haddaad igu diidan tahay mar baan kugu gaalayaa haddii aad maanta sidaan ii xumaynayso maxaa jalay niyada iigu dhisaysay maxaa jacaylkaan iigu abuuraysay aniga weligii ruux ma jeclaan waad og tahay jacaylka adaa i baray mana rabo inaad iiga baxdo aniga inaan sikin ku waayo ma rabo adna wejiga ayaad ii bedelatay ma ruux la jeclaada ayaan u xumahay mise waxaadan ku qanacsanayn ayaan sameeyey aniga ma aqaano ruux aan adiga ahayn sida loola dhaqmo wax walba adiga i bari waan ku baryaa sidaad horay ii ahayd ii noqo haddaad doonto hay soo wicin hana isoo xiriirin balse markaan kuu baahdo moobiilka igu dhegaysan wejigaagana ha iga qarin anigaa kuu baahan maanta